عبدي maanta waxaan rabaa inaan adiguna shacabka adiga faa'iideysano anaguna kaga faa'iideysano waxaan maqalay in maalintii la dhiibay qalbi dhagax habeenkii qalbi dhagax la dhiibay adiga iyo madaxweynaha wada jooga in taliyihii nabad sugidda qaranka Soomaaliya Sambaloosha idiid arintaas wixii idinku yiri waxa laga yaabaa saan u maqalay inay saxay ma habeenka goob joog baad hay taariikh baana harasa maanta waxa ka haraya waa taariikh ummadda Soomaaliyeedna arimaha ay ku jaawareertay ayay runtii ay kamita waa maxay waxa aad ku qanacdeen ama warbixinta sirdoon ee ku saabsaneed qalbi dhagax ee uu taliyuhu habeenka la wadaagay horta waxa weeye waa habeen taariikhda Soomaaliya ku yeelan karta nuqdo madow aniga waxaan maqlay maalinnimadii ayaan maqlay nin baa laga keenay galkacyo area dhulka oo la keenay xamar oo loo dhoofin la rabo in loo dhiibo Ethiopia ninka askari Soomaaliyeed buu ahaa sargaal buu ahaa dagaalkii 77 ragii galay buu ahaa marka aniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo nin Abdirasaaq Juriil leeyra ayaa u nimid madaxweynaha waxaan niri warkaasaan maqalay ninkaas oo loo dhiiba Ethiopia waxa weeye dambiga ugu weyn ee dawladdeenu galayso waxaan kaaga digaynaa baan niri waayahay buu waa ka tagay 4 saac oo habeenimo ayuu ii yeeray madaxweynuhu yaani kolkay tahay 10 fiidkii ayuu madaxweynuhu ii yeeray kolkuu ii yeeray inuu tagay telefoon buu diray wuxuu yiri Cabdi Xaashi yaa ila jooga noo kaale uu yimid wuxuu yiri u sheeg wixii aad ii sheegaysay wuxuu yiri ninkaas wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaa yaani madaxda sare ee jabadii ONLF qalbi dhagaxay buu leeyahay buu yiri marka wuxuu yiri dadka badankiisii waa galeen anna heshiis baan la galay Ethiopia oo waxaan rabaa inaan anigu ilaahdo aan iskeeyo dawladda Soomaaliya ka farban ka rabaa inay ii noqoto oo igeyso waxaan iri ma isaga yiri Sambaloosha weydiis Sambaloosha weydiinaya su'aasha suuye kolkaas yiri kolkaas uu ii soo saaray baasaboorkiisi waa kan fiisihiisi baa ugu yaala yaani waxa weeye anagu haduuna igeeyo oran ma geynayno haduu igeeyo yiraahdo isagu codsigiisa arinta ku adkaysta aniga hal bay dhaaftay habeenka ninka ii keeninaan idhaahdo keen bay seexay intaas ay seexay habeenka marka hadii waxa aroortiina wala dhoofiyay intaasaan anu kahay dib ma isku aragteen Sambaloosha maya martaba kulandan maya waliga yaalay dib uma arag maalinta ku gudumaysi waaye aad iyo aad baasatay gudumay dad badan marka madaxweynaha halka wada joogteen uu ninka society ku waramayay madaxweynuhu marka waa maxay wuxuu doonayay inuu cadeeyo waxa laamaha amnigu u sheegeen ninkaasi ku saabsan inuu maartay madaxda maadaama sidaasaan u qaatay horta kolkuu ii sheegay lees ninkanina uu ku cadcadaa arintu sheegay warkiisa uu ku cadcadaa